Soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa danaystayaal waxa weeye lama barabo inuu xal dhabi yimaado lama barabo waxa afgobaadsi in la yiraahdo wallahi anagu wasaasa naloo galo wasaasa waxa naga maqon ilaa waxyaalaha naga maqan aanu helno wax suura galaya ma jiraan waa afgobaadsi nimanka kan businessmanka ama dhaqaalo kuma dhisan dadka wax soo saar kale reer miyigu ku dhisan yahay beeraleydu ku dhisan yahay dadka daaraha dhisu ku dhisan yahay kalluumaysatada ku dhisan yahay dadkaas oo dhan buu ku dhisan yahay hadda meesha ka baxaan dhaqaale ma jiro dhaqaalaha asliga ay waa ka sidee qabiilada loo heshiisiin karaa waxa jira maqaal kale oo aan qoray oo aad akhrisan kartaan sanada ka hor oo cinwaankiisu yahay maxayna dhaxyaal hurgumo mise hunguri haddaad aqridid waxaan aad idinku boorinayaa inaad aqridaan macalasaf af ingiriisi bay ku qoran yihiin laga yaabay in carabi loo tarjumay in af soomaali loo tarjumay umalayn maayo haddaad aqridaan waxyaalaha laga qoray ilaa yani 40 sanadood u dambeysay dalalka burburka dawladeed ku yimi iyo jaranjaraday mareen runtii wax badan baa kaaga soo kordhaya marka aniga oo soo koobaya waxa weeye marka la kala adkaan waayo oo sida Soomaaliya kale ay ku dhacday hadda Rwanda aad aragteen Rwanda sababtoo u weyn waxay tahay dabcan isla mid ma ahayn ninkii madaxda ka ahaa Paul Kagame iyo ragii Soomaalida jabhadii ka madaxda ahaa niman isku mid ma ahayn oo ninkan uu hogaamiye leh ma garanaysaa sifooyin aad u fiican weeye inkastoo hadda dictator yahay laakiin waxa weeye uu ku guuleystay jabhadiisii baa ku guuleystay marka dagaalkii ma uu sii socon saasoo kale to markay dhacday xalku waa dhow yahay marka waxay isugu tagayaan marka uu jaranjaray wuxuu maraan jaranjaradaas xoogaa bay ku kala yara duwan yihiin yaani cadaalad darray ku bilaabantaa jaranjaray martaa caqiidad bay dadka ku kala noqotaa yaani sidii wuxuu dhaceen qabiil ba ama kooxiyay qaar ba waxba galo oo sidii caqiidado kale ku noqotaa hadda qabaa'ilka Soomaaliyeed hadda dadka aad 10 qof isu keentido 10 qabiil kala socdo oo tradisideeba u dhacay dagaalkii sokeeye 10 siyood kala duwan bay ku kala sheegayaan waayo waa wax galay oo caqiidado kale ku noqday heerka u dambeeya marka la ismari waayo waxay yiraahdaan wuxuu ku dambeeyaa damac iyo hunguri damac tabaqad baa meesha qabsata tabaqadaas oo waxaad urursan karto ururso aan waxaan aaminsanahay Soomaaliya maanta inay heerka joogto Soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa danaystayaal isku xisbi weligood ha kala sheegtaan ama qabiil ha kala sheegtaan ama wax kale ha kala sheegtaan nimanka madaxda federaalka hadday tahay gobolada kuwa ka taliya dhamaantood way isku wada xisbi weeye Soomaaliya ma qabo inay isbedelayso ilaa ay xoogaga wax soo saarka xoogaga dhabta ah oo murmaalka xalaal cunka ay awood siyaasadeed yeeshaan oo isu tagaan awood siyaasadeed iyagoo muujiya oo kaliya ayaa lagu bedeli karaa aqliga kan hadda jira hadda dhaqan baa jira tabaqadaas oo ay ku shaqayso isma bedelayo ilaa wax la tuso marka runtii taasi jawaabtaasi su'aalo kale to ay iyagana jawaab u noqonaysaa iyadoo ay qooni jirto hadda maxaa keenay qabyaaladda waxa weeye waxa hadaad aqrido again aan ku noqday jaranjaraday marto dagaalada sokeeye jaranjaraday maraan waliba khaasatan marka la kala adkaan waayo waxa weeye lama barabo inuu xal dhabi yimaado lama barabo heer saasaba la gaaraya heer ay tahay afgobaadsi maxaa afgobaadsiya waxa afgobaadsiya in la yiraahdo wallahi anagu wasaasa naloo galo wasaasa waxa naga maqon ilaa waxyaalaha naga maqan aanu helno wax suura galaya ma jiraan waa afgobaadsi already waxa nimankaas oo hadlaya wixii doonayeen way haystaan laakiin marmarsiyo ayay ka dhiganayaan Soomaaliya sidee hal qaran looga dhigi karaa intaas oo dhamay runtii way isku wada xidhan waxaan aaminsanahay Soomaaliya inaan isbedelayn yani runtii waxaad oran kartaa dadku markay thawra ay revolution laga hadlo inay waxay moodaan dil iyo dhiig iyo dhaawac iyo wax saas ay moodaan laakiin revolution kuma khasab ma aha
inuu noqdo dil iyo burbur inuu noqdo laakiin waxa weeyaan fikirka iyo dhaqanka jira ya in barida dhulka loogu dhufto ma aha khasab inuu dagaal noqdo waa in quwad siyaasi ah xoogaga horu socodka markaan Mareykan joogo xoogaga horu socodka waxa ka buuxa kuwa dhaqan xumada ku baaqa oo difaaca marka kuwa ka hadli maayo يعني هر سعود كوحن كهذا يا حوك ستة أنا ودتك الدنيا ارتعبان تابع سنة دتك الدنيا ارتعبان تابع سنة هم سنة إن دولته مجتمعه أو مجتمع حل كسارية هي دتك الدنيا دتك الليت دتك حوك ستة ضد يوجا صور دميني السبب ولان سيد قرآن سياسة السوق الكرا هذه إلى هاي النفط يدايو ويدو أي السوتجان حوجة جاسي وعن كم النقطة مرنا بأي مصورنا إن سياسيين تن سوماليا كشرتوا وكلتوا عن نقطة لكن رتي جواب تيهورة أيا أنت كلتوا عندنا من سنة مقرن إسا يعني محين الدولة ويني بحق بيارد اللو حكمي واي وحويا النظام كان هذا اللسان والنظام دنيس كل سنوية أنت النظام كاسو تشرنا وحبيس ببدله يعني وحوين اسمه بدله يعني ضد بدن بانو أنا شخصيا أنا فكرة ده ويدار سنشري أنا وطنيين مودي شري وطنيين أنا مودي شري ضد وطنيين أو دا عضو أنا مودي شري وأنا أركي مركي حكم كقبتين أما كله وهذين سيدا ونغمين بان أركي مركا وحوية وإن قوة سياسية ليس كما أمني كرقف أنا جاي أمنينا وإن قوة سياسية dadka xoogsatada dadka runtii u dhaqaalaha wadanku ku dhisan yahay ma nimanka kan businessmanka ma dhaqaalo ku dhisan dadka wax soo saar kale reermigu ku dhisan yahay beeraleydu ku dhisan yahay dadka daaraha dhisu ku dhisan yahay kalluumaysatada ku dhisan yahay dadkaas oo dhan ku dhisan yahay hadda meesha ka baxaan dhaqaale ma jiro dhaqaalaha asliga waa ka dadkaas hadii la awoodayo awood yeeshaan dadkaas ayaa wax bedeli kara